السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كسو دبدا جنال كنا بيمي برودكشن. عيد مبارك كل عام وأنتم بخير. مقالك حدكو برندونتان سيدا كمبيوترك لو فرو، يعني أدقو استعمالها تليفونك سيدا أفر كرتا كمبيوترك داوشو عن marka hore waa inaad ku shubtaa kombiyuutarkaaga remote fingerprint. waxaan idiin soo dhigayaa descriptionka iyadoo 64 bit iyo 32 bit. kadib markaa waad ku shubanaysaa oo waxaad dhahaysaa install. markaa install garayso oo aad ku shubto kombiyuutarkaaga waxaad samaynaysaa ugu horeyn waxaad xiraysaa windowskaaga, yacni ma daminaysid keliya waxaad taabanaysaa Windows plus L. kadib waxaad soo degsanaysaa applicationkan remote fingerprint. Play Store ayaad kala soo degaysaa, haddii kalena waxaan kusoo dhigaa descriptionka, halkaas ayaad kala degaysaa. markaa ku shubto mobilkaaga waa soo kaxsanaysaa, kadib waxaad taabanaysaa okay ayaad taabanaysaa. markaa taabato okay kadib waxaad aadaysaa calaamadan saddexda xariiqadood, waxaad kasii dooranaysaa scan. kadib waxaad taabanaysaa meeshan wareega hoos. markaa taabato by scan ayaad taabanaysaa, kadib wifi-gaaga magaciisa ay kuu soo qabanayo waa taabanaysaa. markaa taabato waxaa kasii dooranaysaa wifi scan. haddaa rabto direct IP ama bluetooth. hadda aniga waxaan bluetooth iguma jiro, hadda waxaan dooranaya wifi scan. kadib save ayaan leeyahay okay, ama waxaan taabanaya add account ayaan hadda ka dooranaya. kadib waxaan kasii dooranaya calaamada saddexda dhibic add account ayaan leeyahay. markaan dhaho okay kadib waxaan gelinayaa magaca, haddaan rabo waxaan gelinayaa magaca kombiyuutarkayga. kadib waxaad gelinaysaa kombiyuutarkaaga passwordka ku xiran ayaad gelinaysaa. haddii aad qalado yacni kuma suurtagelayso in aad jibiso, yacni aad furto kombiyuutarka. marka passwordka waa inaad gelisaa. save ayaad leedahay. ma intaadan save dhihin karo horta fingerprintiga ayaad ku xiranaysaa. markaa kadib save ayaad leedahay. okay kadib saddexda xariiqad imow unlock. kadib fartaada ku aadi meesha yacni mobilkaaga ay furayso, yacni ayaad taabanaysaa farta. kadib waa kaasaa kombiyuutarkii oo uu furmaday.